Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda dhammaan waan isalaamay aadka aan jecla asxaabteyda waxaan ugu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan dhahay asxaabey waxaan wadaa maasha allah alaabtan quruxda badan aan ujeedin miisaankan dhisaan aan caadi ahaan aad jeclaa doontiin waaye waana ka heli doontiin maasha allah waxaan wadaa golden and white and black daahiyo aan caadi ahayn oo aad iyo aad u qurux badan oo ujeedin oo white and golden and black isku jiro waaye geesaha laba black ka xigto dhinacan kale waxaa mariyay goldenkii whitekii waa isku xijiyay waa dareemi kartiin intana waxaa noo yaalo barkimaheena quruxda badnaa ee ujeedin maasha allah saddex xabo waa tiirsan yihiin xabad dhexda ayaan ka geliyay balaaga barkintan kaloo goldenka geeska uga qabta maasha allah innaba caadi ma ahan matching waaye waa isku match gareeya waa ujeedin xagga waxaa noo yaala saddex birkin kale xabad hoose cadaan dhulka ayaan dhigay hal balaagna waa kor saaray halna waa ku tiiri waa ujeedin goldenka whiteka isku jiro birbirqa leh innaba caadi ma maasha allah kama maqna ayadana labadeena shumacyadaas ujeedin guduudka waxaa u ekeysiiyey wax guduuda meesha kuma jiro waa golden iyo white and black laakiin koobadiinada geedadka ii saaran ayaa guduud ah markii lagu shiday nalka ujeedin sida iskugu ekaadeen laba matchin ayaa uga galay daahina waa kana maasha allah isagana quruxda badnaa aan caadiga ahayn oo aad iyo aadka cadaan iyo goldenka isku jiray bustaha korkiisa waxaa ii saaran daaha dhanka goldenka jaalaha maradiisa ayaa ii saaran labada dhinac ayaan uga qabta oo ujeedin geesahana waxaan ka dhigay ubaxyada yalowga ayaan geesahan ka saaray maasha allah innaba caadi maaha waatanaa birkinka qaybta daaha weedka cadka ah ayaan birkintan kala dhexda ayadana maasha allah uga qabtay wow caadi maahan waa jeclaa doontiin waana ka heli doontiin innaba caadi maahan waa kana shumacyadeeni quruxda badnaa ubaxyadan asxaabta ayaan dhaco ubaxyada carfaayo waaye kuwan oo geesaha uga qabtay bustaha korkooda kuwa carfaayo waaye maradana waa tanaa sidee u dhalaalay ee quruxda badan iyo qaabkan usoo hagaajiyay maasha allah lagama sheekey karo quruxdiisaan ku dhayaa aroosna ka daranaa ku dhaha maasha allah waa kana dhuveyga waa kana maasha allah ubaxyada yalowga ayaan inta uga qabtay ubax yaryar oo kuwa carfaayo aan dhahayo waaye geesaha ayaa uga taxa maasha allah matchin unbaa uga qabanaa inaan ku matchin gareeyo wayna kusoo baxeen quruxeena ugu soo baxeen maasha allah innaba caadi maan asxaabteyda soo dhawaada ayaan in leeyahay asxaabta aadka aan jeclahay oo igu xiran mar walba oo fiirsada fiidiyoyaashayga iyo channelkayga la socdo waxaan dhaha soo dhawaada waxaan in hayaa mar walba waxaan in soo gelinaa waxyaalo ay jeclaa doontiin oo aana ka heli doontiin maasha waana ku qanci doontiin hadduu ilaahay yidhaahdo maantana waa kana dhisaankan ayaan in wadaa aadka iyo aadka quruxda badan asxaabteyda yaa alla daawadaha laga dhargo yaa waa kana daaheeni isagana maasha allah sida matchinka isku qaateen baaba laga sheekey karin bayaa asxaabay haddii aad ka hesheen waa ila soo xiriiri kartiin meesha aan ka hagaagsaday iyo meesha aan ka soo gatay qofkii u baahan oo markaas oo ka helo gabdhaha baayaashii haddaa ka hesho waa ila soo xiriiri kartiin hadduu ilaahay yidhaahdo waa in sheegaa meesha aan kasoo gaday iyo meesha la iiga soo hagaajiyay hadduu ilaahay yidhaahdo waa kanaa sariirteena sida quruxda badan dhankan ayaan iga qabtay ubaxyada waan ku maxaa la dhahay waan ku taxaylay geesaha ayaan uga qabtay ubaxyada shumac asxaabi waxaan in sheegaa birkimaha markii oo aa u dhaweysiin shumaca waxaa soo baxa qaybtii oo birbiriqi ayaa soo baxa wixii kusoo bixi qurux keli haddaa dhigta laakiin birbiriqi waa dibma birbiriqi wax ifaay unbuu kusoo baxaa sheegi soomaa shayni markuu leeyahay shayninkiisa dhan ayaa soo baxa waa ujeediin hadda daaya waa kaasaa sida quruxda badan oo kusoo baxay yaa waxaa naga sugtaan iyo dhisaan kale hadduu ilaa yiraa tookada dambe aan soo geli doonana waxaa noogu xigi doono buluugiisa hadduu ilaahay yiraa buluug ay ka shidan tahay hadduu ilaahay yiraahdo waa kanaa sariirtii qaabkeedii iyo sidii aan u gogno maasha allah qadkaabana dhiboy maxaa kan raalli ahaada qadka ayaa iska soo galaa mise biyo iska soo dhacdhacooyaan waa kana maasha allah sariirteeni dhankan kale ayaan haddana uga qabtay waa kaasaa daahi
waa 4 xabo, 2 golden ah iyo 2 white ah oo ujeedin barkimaana ujeedin golden oo white isku jiro waaye bustiina ujeedin marada kor saaran waa golden iyo ubaxyada carfayeen oo jaalo ahaan asxaabta ubaxdan ay kalar ayuu leeyahay green oo leeyahay guduud oo leeyahay purple ay leeyihiin yellow gaan ay leeyihiin orange ay leeyihiin ay nooca ka helaysiin asxaabta hadii aad ka heshaan insha Allah meesha aad ka heli doontiin aan sheegi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo marka u dambeeyna waa kana wow inaba caadi maahan marka indhahaye barkimaha waxaa loo dhaweeyaa shumac marka u dhaweysid waxaa soo baxaayo shininki oo ujeedin sida quruxda badan oo shininki noogu soo baxay inaba caadi maahan asxaabteyda barkimihiina waa kuwaasa sidaas ayaan ku gogladay hadii aad ka heshid dhiseenkana maasha Allah gurigaada ku hagaagso adigoo joogtid wax yar oo easy oo iska fudud oo macquul ahna oo maasha Allah xaajigaagana kugu qanca oo ku qanci kartid oo maasha Allah kuguna farxaaya gabdhaha laga farxiyo xaajiga guri qurux badan qaybaha nadaafada la iska soo dhiso ma ujeedin wax yar ma ashuushuuteysata waa moodo qaakana daahi markii aan nalka aan u daminay sidaas ayuu ku soo baxay nalka kore oo baan damiyay waa kana sidaas quruxda badan ujeedin barkimihi ujeedin say u dhalaalayaan hadii aan shumac ka dhigi lahayn ma soo bixi lahayn shininka dhan banaanka ma imaadeen laakiin waxa ugu dhaweeyay shumac waxay tahay in ay shininka banaanka imaado quruxdaas kaliya hadda oo ku soo baxay in oo iigu soo baxo waa kaasa maasha Allah saasan iigu soo baxay iyo quruxda badan oo ujeedin daahana waa kaasa barkimahaas iskula ifooyaan dhaldhalaalka iga dheh waa qaybaha dhaldhalaalka ee ka shidanta waa ujeedin waxaa sugi doontiin waxaa waaye dhiseemo kale qurux badan oo aan in soo wada ka heli doontiin barkimo kale oo nashqado kale oo maasha Allah aad iyo aad qurux badan oo soo wada hadii Ilaahay yiraahdo waa daawo doontiin waana ka heli doontiin asxaabteeda ugu xiran sida mar walba ay ii dhiirigelisiin oo fiidiyoyaashii commentiga uga soo baxsatiin hadii aad su'aal qabtiin commentiga ayaa iigu soo reebi kartaa walaalahayga aan jeclahay waan iigu soo jawaabi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waa muhiim inaad like noo saartaa iyo hadaa nagu cusubtaan waxaan ku dhahna soo dhawaaw hadaa hore iila joogtana waxaan ku dhahaa maasha Allah gacmo furan hadii aanu cusubtaane subscribe like share comment sii share garay asxaabtaada kale sidee u arkaan waxyaalaha fiican oo aan soo geliyo oo uga faa'iidi doonaan ugu hagaajin doonaan guryahooda iyo xaajigooda haduu Ilaahay yiraahdo daawasho wacan asxaabteyda qaakana asxaabteyda hadda waxaan u damiyay nalkii kale ayaan u damiyay waxaan u shiday nalka kor oo buluug ayaan u shiday sidaas quruxda badan oo ku soo baxay waxa isqabsaday gaduudkii iyo buluugii iyo faskii oo shayninkii daahi iyo barkimihii quruxda badnaay maasha Allah inaba caadi maahan asxaabteyda waa ujeedin wuxuu noqday gaduud ama blue inaba caadi ahayn ka faa'iideysi wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawasho wacan akhyaarteyda asxaabteyda dhammaantiina assalaamu calaykum ayaan leeyahay khayr badan ayaan idin rajeynayaa